munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda reer Somaliland ee magaalada Sheffield oo loogaga hadlayay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa wadada Ceergaabo iyo magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaanba jaaliyadda reer Somaliland ee magaalada Sheffield waxaa munaasabadan lagu soo dhaweeyay oo waliba si diiran loogu soo dhaweeyay waftigii u xil saaraa dhaqaale ururinta wadadan oo baryahanba ku sugnaa wadankan Ingiriiska munaasabadan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay sidii loogu talagalay waxaana ka soo baxay qaadan kor u dhaafaya 43,000 oo dollarka Mareykanka waxaan leeyahay xildhibaanada wasiirada wakiilka odayaasha hablaha qaaliga ah ku soo dhawaada jaaliyadii Sheffield oo idin soo diyaar garowday oo aad ixtiraam iyo muxtaram idin ku haysa professorku wuxuu yiri wadada hadii aad sameeysan idinkoo aad dawlad aan la ictiraafin oo ku guuleystaan waxaan ballan leedii qaadaya Yurub America Canada adduunka dhan in idin lacagta hooyo ma igu waafaqsantiin haddaan tii reer Sheffield meel kastana sidaas laga yiri wadada inaynu u kacno oo qayb wax ka qaadano kullay Sheffield waana qaana way u kacaysaa aad baa u mahadsantiin waqtiga ayaa halkan inoogu diyaara oo fariintii ay madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siyaaya ka sideen halkan inoogu soo gudbin doona insha Allah iyagan hadalka u deynaya inaguna insha Allah waxaynu ku rajoonahay inagoo isu dhan inaynu si laxaad leh uga hagar baxno jabka gacanta ugu galino mowduuca muhiimka insha Allah hadday doolar noqoto xagii doolarka ay ka shaqeynay ama 100,000 pound hadii aan la yiraahdo sheego burkisa weyn wadada Ceergaabo waa Somaliland dhisto aqoonsi uma baahnayo wadada soo raacay yees wallahi ma inta ka Ceergaabo ama skaraan wala wiil hay wala galayaan ina intu joogana tobda oo dadka badan ee magaalada Sheffield waxay ugu maqaalaa tobda baa u siiyay wadada waa nala wadaagsan inta soo qoladii iyaguna Caynaba marka qolada tobda ee wadada nala iyo qolada Caynaba maxay saraar region oo wadada nala iyo qolada reer Sanaagda jeebka aad gacanta ugu ama ka socon nimanka نوري فريق أنا بيجي بجرو generation سنة واحد كم فريق وسنة الآية إنما ما هيتين هذا الفريق وعروتين من الليل عروتين قال له كي أيضا لكم هذا الفكرنا المستقبل يا الجامعة متنبأ وعن كم فريق بقول ما ينقطين بقول الله بين نقطتين marka inta noqotay walakiin jaclaan naftiisa oo baaga hoos u dhigi jiray marka lagu dhiftana waa 150 marka la geliyo dirigii la jaclaana waa 100 marka sarifkii way isu dhimanaya oo isleeyahay waxaanu markaa sidaas baynu ku kala faataxaysanayna di Allah yidhi waxaanu damaanad iyo hadii aan ku raaysano inay taan dambeeyo bidaydu weydiin mayno. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.